وسارده أتبوّد كور هيسا أنا وكور هيا كارك اللوق بيجي وسارده بلا ليشان يتمنى لبعتن كار قات مع شورتي يمدوا عاية يبا ما أنت الله صينيا محله عاية يا عمده قرنك محله عاية dignity-ga iyo sovereignty-ga aan leeyahay ee muwaadin walo ila mid ila madaxweynuhu leeyahay maxaa loo caayaya bas waliba lacagtii baa laga gunaynayaa Somaliland come on I don't think inay dhacayso horta caawa way Cabdiraxmaan waa miyir qabaa dawladeedu waa miyir qabtaa dawladda aan taageero isbedel bay doonaysaa isbedelkan way miyir qabtaa I don't think dadku baa iska boonboonayeen buugal la qabanaya caawa anigu uma haysto haddii taa la ogolaado maanta dee Somaliland wax la yiraahdaa ma jirto I'm telling you. فيلم كاتير هذه الأغراض. دي سونيو واللي بقاك. هرت إنك سماها عدو السوماليلاند وعدو جينا سماها. سوشيال عدو جينا مو هين. تيو عايب وكض. وروح الشلي يلسو تقول قال ما هم بركين روح ماي. مركا وحوين مياه ما عمل كهرو عايب ما عمل كانوا عماني مياه. ناواي. سوماليلاند بوحكا شاقي. أسكرتو دي جيسو كفر حي. كوي كانوا لا سومت شوقان. لأن يردي سومت شوكتو. سو هرجيسة ما هميشو يا هدي قبيل عبد الرزاق لو قلت هاجره تمر كقبيلين هي قبيل بمشي سيده امارات كسو مدري ayaynu noqonaynaa berigii kacaankiisii adare ayaa waxaa la soo halgamay in salaad gabeele loo oran jiray caynaashiyo lagu dili jiray markii isqabsigii dadku waxay lahayn ma isaga xidhi kara inuu xidhaba aqligooda kama dhaadhacsanin wuu xidhay siyaad baray ha rumor baa soo gaaray la leeyahay dil buu ku xukumayaa isaga dil ku xukuma kara ragii la soo halgamay maxay ogolaadeen tii hore inuu xidhi karo ay diidanaayeen way ogolaadeen markii la xidhay waxay se diidan yihiin dilka markaasuu dil ku xukumay markaasay yidhahdeen ma isagaa tuugan kara maxay ogolaadeen inuu xidhi karo dilna ku xukumi karo maxaa uga dhiman inuu dilo uu dilay laba shibirood isma weydiin waragii la soo halgamay ha waxaan ka hadlayay dadweynuhu markii hore xadhigay diidanaayeen markuu xidhay tii kale yidhahdeen ma isagaa ku dhaca inuu dilo xadhigii bay ogolaadeen markaasuu dil ku xukumay markaasay yidhahdeen isagaa dili kara way ogolaadeen already inuu dil ku xukumay uu dilay cidna isma weydiin cabdirasaaq teera inuu Somaliland yimaadeen diidanayn wuu yimi dawladdu galaya oo ku dhawaanaya ma isagaa ku dhawaan kara maxayna ogolaanay ninkii sidii ahaa ee dhiigga qaran askarta qaranka Somaliland ku farxay dhimashadoodii ee askarta qaranka Somaliland caayay ee Somaliland caayay ee ila anigu personal isma naqaano haddii iga soo baxano wallaanan garanayn inaanu isnaqaanana ma garanayo personalina anigu shakhsiyadiisa yes ma jecli waayo anu incabi أنا Somaliland بدي نعبي أنا Somaliland بوحي إيجا شيء لكن ده واحد بيرسونال لا بد أن نجد حياة أنا قديه ده جود أن كنا عياهين ما شرتو مركان نينكي عينك يا هبا Somaliland إيماني كرك بدنا وكله ده Somaliland كسهر تيجي بعتير لكن يسوق أفكار لبلوها نينك وريها هنا أديكو كلا أنيكو كلا إن كلام كلا رجع كلا وي كلمة دوي كحون تهي أفرت الحبضات ولا وجود فتي مركا عبد الرزاق بقى الله أقول هذا إنه ما أنت كونفرت مقالة تشوفه حد كودا كونفرت مقالة تشوفه دهني واحد اللي يقول واحد دقيقة هي نيو هرجيس إيه أجا أنا جوا صدا عندي قبوا أكتين أنت جناية ورمح يدي وبرجع مقالة هرجيس برجاسي أدوك ميلها سود دقيقة اللي يقول مرد أنا ليه وهرت هالكو كده دقيقة مقالة ده وأنا شرب بالحضين تعطوا تكتو سبحانك يا عديم بلده وحسلها ما قرن كران نقول ميلو دقيقة لكن هرت ده هرجيسو دقيقة وحلي يقول وانيو هالكاسو دقيقة تيجي يربان دقيقة هي قنت عليه إنه هالكا دقيقة هنا والله أنا وروحي مركا وحويان وحين أقلعني إنه سمع الله يمات وحين أقلعني إنه بوجيسي صباح أو بوج Somaliland محوك قرية Somaliland تمرك أروح قرية ما رحين وفيلم دوكيومنتري وصوب ده فيلم دوكيومنتري جاه كي كهرية كوبا بيناي يسي كريسي إنه هذا ما أنت Somaliland ما نمانيا سؤال ما المدة اللي ودينا يو جديدة يو كعرلا يو ما جعبال لوسمي نكى
lama eegaya laakiin cawaaqib xumada ka dambeynaysa marka documentary bu Somaliland tii aynu ku nacnay Soomaa tii uu dhiiga ciidanka qaranka Somaliland ku farxayay Soomaa tuulaha xabaal wadareedo iyo wixii uu la saanood ka sameeyay aynu ogeyn Soomaa Somaliland muxuu ka oran karaa maanta isaga laftigiisu inaanu macna lahayn matuucaayay buu maanta amaanaya ma adeerkay baa meesha qabsadayba manin qabiilkayga baa qabsadayba manin I don't know waxa kale oo ajaa'iba waxaynu ogolaanay in buugiisa la haysiyo caawo Soomaa in la dhigay waxa ku jaban waynu ogolaanay wax kasta inaga ogolaanay shicibka awood la wadankan dawladda awood ma leh shicibka awood leh shicibka soo kuwan daawanaya maaha meel waxa ka soo hadlay qaar baa difaacaya narkay muxuu ku difaacaya meelan qaran wada lahayn qabiil hadii la isku difaacayo ninka ugu horeeya xamar qabanaya waaniga hadii loo ogolaado ninka ugu horeeya xamar tagaya waaniga sabab wato sotan isagiiba loo ogolaaday inuu yimaado Somaliland ba soo buufinaya markaan imaadana waa caadi sida kanaan xanaya sharci hadaan laga soo saarin maxay xiraaya sootii awal ba siyaasiyiintu intii halka xamar xilal ka qabtaan hadhow tolo cad soo weydiisan jiray kan iman jiray siyaasiga kale in shaqatigii buu ahaa in dawladda in kasto aniga aan xaqayga ka tirsanayn oo ragii soo buufinayba ay ku jiraan isagu ka duway isagu documentary ka duway Somaliland oo wax bias oo aan run ahayn maanta muxuu ii sheegaya marka anigoo kale iyo wixii iga yar anigu nin weyn baan inta waaweyn da'dayda ugu yar iyo adiga inta kuugu weyn xamar maxaa u diiday 60 jir waxba igama hadhin imika iyo 20 jir inta u dhaxaysa 40 ka sanood gaabka u dhaxeeya in xamar tagaan koonfur tagaan maxaa u diiday Somalilandnimadii muqaddaska ahayd Somalilandnimadii dhiigeena la socotay caawa hadii barnaamijkaas dhaco ma jirto xukuumadda xisbiga mucaaradka waddanka soo dhisay wad ka mid ahayd markay eedan aad arkaan laga yaabo inay ku qoonsadaan ma qoonsan karaan haday qoonsadaan iyaga jirta anigu nin wadaniya baan meel walba inaad irwaan idin ka sheegaa wadani baan ahay maamulkana waan taageersanay laakiin qaladka maamulkayga miyaan aamusa halkan ka sheegay horena waan u sheegay marka isbedel baan doonay isbedel nololeed baan Cabdiraxmaan ku raacay for your information Cabdiraxmaan waa saaxiibkay aniga marna waa walaalkayga weyn family friend waan aniga iyo familyigiisa iyo walaalkayba ma fahantay dad aad isugu dhow ixtiraamna waan u hayaa laakiin maaha macnaheedu inaan teero ku daawado qaranka deeyle qaranka waa inuu difaacinaa marka cid ugu qoonsan maysatan waxaan hadlayaa shucuurtayda anigu maaha nin dawladda ka soo horjeeda inaan ahay laakiin daliisha dawladda waa waxyaabaha niyo malaadu kulmeed ahayd waxyaabaha kulmiye ama saxafi baan ahay kulmiye saxafiga hadii la wadayahay hadana waa la ama saxafi baan wadanina waan ahay maxaad uga gabanaysaa xisbigani ma ka soo baxay ka haday noqoto kulmiye haday noqoto ucudi hore midina may gaadin heerkan wadani gaaray inay dhaliisha iyagu isu sheegaan ma ceebaan ceebeynayo kulmiye imika xisbiga jira ma ko labadii imika diina ka hayn inay bixa isku haystaan inuu gal arin waan soo noqon doonaa in kasto aanan wada kulmiye ahayn hadana daafa araartida ka dhiiban ka hana de waa xisbiga ruuxsuuga anigu wadani baan laakiin dhaliisha waa sheegaya Cabdirasaaq Teera in wasiirada qaar ay wasaaradihii watagiska cashuurta ummadii u shalay caayay in wasaarad walba la yiraahdo inta soo buuqaado 250 bixi wallahi billahi tallahi eebay ku tahay maamulka aan taageero wallahi dhimashay ku tii oo billahi dhimashay ku too tallahi dhimashay ku tii in raguna waayo waragii shalay halka la joogay isaga xagee la joogay ee koonfur xamar la joogay ilaa anigu maan maqlayni markay lahaayeen de Soomaha wararka magaalada yaala wasaaradihii adba waad ka waraysaa anna waan ka warhayaa in buugaag loo qaybiyo la yiri qaat kaararkii caaw lagu qaybgalay kaararka loo qaybgalay wasaaraddu la yiri 15 kaar qaat ma cashuurtii uma ducaayayba maanta la siinaya
maxaa loo caayaya ummadda qaranka maxaa loo caayaya dignitiga iyo sovereigntiga aan leeyahay ee muwaadin walo ila mid ila madaxweynuhu leeyahay maxaa loo caayaya bas waliba lacagtii baa laga gunaynayaa Somaliland. Come on, I don't think inay dhacayso horta caawa hay Cabdiraxmaan waa miyir qabaa dawladeedu waa miyir qabtaa dawladda aan taageera isbedel bay doonaysaa isbedelkan way miyir qabtaa I don't think dadku ma iska boonboonayeen buugal la qabanaya caawa anigu uma haysto lacagtii qaranka waliba Cabdirasaaq la siinayaana laga yaabaa sidii arrintii shirkadaha u joojiyeen buugan u joojiyay possible ha waxba kuma aha Cabdiraxmaan doo muwaadin dhaba walaani Somaliland doonayeen wax ka bedelo waa sidaan aaminsanay anigu ilaahay baana igaga sareeyay anigu ma gol wadeeyo qaar baa u malayn mala rishafalkuna Cabdigood sidaan oranaya waxaan sidaan ugu hadlayana wayna dadku ilaahay baa halka bixiya nin bixiya ma jiro laakiin anigu waxaan qaba Cabdiraxmaan inuu doonayo inuu waddanka wax ka bedelo waa isbedelkan ku doontay kun macaado de qarqarqalood baa ku yimi oo mar xaggan lagu furiyo waa nin ka baxaya waa nin diblomaasiyadda yaqaano aamusan oo sirta dawladda haya waxba kuma ahaynu buuga caawi yiraahdo objection anagala taga inuu yidhina warba uma hayno anu ma qabo inuu ogolaanayo Cabdiraxmaan horta marka shacabka Somaliland maxaa faran u dirisay arrintan ma inay ka kacaan ma in farintu u dirisay wax farin la soo diriyo wax kala jira ninka dhiigayga shalay ku farxayay askarta daway noo soo wadanka way joogtaa dhalinyaradii Somaliland la da'dahayd meeday oo kuwii hadlay lama qaban karo haddii taa la ogolaado maanta dee Somaliland wax la yiraahdaa ma jirto I'm telling you filmka tiraadii la ogolaado dee soo nin waliba eeg horta inaga Soomaha cadawga Somaliland waa cadawgeena Soomaha soo shil cadawgeena ma ahayn tii caayib ka war wuxuu shilay yiri suudiga ogaamaha markay lagu xumay marka wax weyn miya maamulka horu caayay maamulkan uu amaanay miya naaway Somaliland wax ka sheegay askartu dhiigiisa ku farxay kuwii ka noolaa soo ma joogaan dhalinyaradii soo ma joogto soo hargeysa maaha meesho haddii qabiil Cabdirasaaq lagu taageero marka qabiilayn waxay qabiil meeshiisa sida imaaraadka Soomaaliya ayaynu noqonaynaa sida imaaraadka lixda ay soo qaybiyeen Soomaaliya intee qolo waliba gobolkeeda markaa waxay doontaa ka sameysay haddii si tan la wada leeyahay Cabdirasaaq kama dhigi karo dadka qaar waxay u arkaan Cabdirasaaq in hal beeli ay ka soo horjeedo ay eedeynayso bal adu dadka arinta qaba maxad leedahay si dadka ku difaacaya arinta qabiilada waxay la dishay nin qaldan jawaabtiisa nin qaldan halkan ugama jawaabayo qiimaanu yeelay markaas su'aasha kama jawaabayo I don't think in beeli ka soo horjeedo eesho yani Cabdiraxmaan ahayn Cabdiraxmaan ka doortay miyaanu haynaan musabixi ka raacay sidee baa beeli ma uga soo horjeedi karaa markaanu Cabdiraxmaan baan raacay isagoo in adeerkay taagan yahay oo seedigay taagan yahay baan Cabdiraxmaan raacay mateeran qabiilkiga soo horjeedaya marka kan ninka aqliga noocaas oo jawaab ma ay ka